ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Shirkani oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa ka hadlay aqoon-yahano iyo siyaasiyiin laga soo doorto dalka Mareykanka. waxaana xusid mudan in munaasabadani ay soo qaban qaabiyeen Shiiqaal Development Network. dadkii ka hadlay munaasabadani hadaladoodii waxaa ka mid ahaa waa shir sanadeed horumarka iyo isku xirka jaaliyadda Shiiqaaleed. waxaa soo agaasimay Shiiqaal Development Network sidaad u jeedaan maadaama shirkan uu yahay shir sanadeed horumarinta iyo isku xirka jaaliyadda Shiiqaaleed waxaana ka marneen jaaliyadaha Soomaaliyeed oo si toos ah ugu casuumnay. wuxuu hallig u yahay isdhaxgalka jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo isgacan wadaarsiga. waxaan leeyahay beesha Shiiqaaleed waa beel nabdoon waa beel Soomaali taariikh ku leh taariikhda islaamka ayay muhiim u tahay oo ay ugu weyn tahay diinta islaamka lagu magacaabo beesha Shiiqaaleed marka hore waxay ku darsadeen noloshii kale ee ummaddu ay ku noolayd inay caawan isugu yeedhaan awal diintay ugu yeeri jireen inay caawan ugu yeedhaan Soomaali weyn inay isu timaado. waan idinka mahad celinaya. ururkaani wuxuu ku salaysan yahay isku xirkeena horumarinteena iyo sida aan la qaybsan lahayn guud ahaan dalay dibadba ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda kaleba. ciidan meesha gogasha dhigtay dadna way haysaa aqoonna way haysaa tacliinna way haysaa xoolana way haysaa sida halkan hadda aanu joogno ayna meel kasta dunida uga joogtaa. waxaan leeyahay tiradaas iyo tayadaas aad haysataan waa liintii lemonade ka sameeya. marka hore kulankan oo kale waa kulanka u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in la hormariyo danta dadkeena in la hormariyo dadka danteena aad bay wanaagsan tahay oo dadku ismaamulaan oo ay dhahaan maanta maxaa u qaban karnaa dalkeeni dalkan hadda joogno caruurteena iyo future-keena. marka wanaagan oo kale inaan ka maqnaado waa hameenka xalaya tagay aad baan ugu faraxsanahay. organization-ka soo abaabulay xafladan iyo kulankan qiimaha badan ee weyniga badan maxaan ku yiraahdaa Shiiqaal Development Network oo ay gudoomiye u tahay Hawda Cabdiraxmaan. ana dooga hadna celinaya qabanqaabada iyo isu keenida ummadan faraha badan ee intaan dhan inay isu keeneen ayagoo dareensan in bulshada la isku xiro inay tahay mid kamid ah waajibaadka hor yaalla inay kamid tahay. way fiican tahay taariikhda in la isbarto way fiican tahay dadka inay isbartaan xoogaa caawa waxaan maqlay xataa waxyaalo badan oo aan hore u ogeyn laftigeeda taariikhda maaragtay dadka hadaa lagu baranin waa inaa isbartaa. waan soo dhaweynayaa organization-kan waa ku faraxsanahay wax kasta oo horumar ah oo aad qabanaysiin insha Allah waa idin kala qayb qaadanayna. Assalaamu calaykum. sidii loo baahan yahay marka sidaan haddaan soo gaarnay xilligan waqtigaan soo gaaray waxbarasho ayaa loo baahan yahay isku xidhnaan ayaa loo baahan yahay wax socon kara wax socon kara waa dhalinyaro wax socon karta dhalinyaro ayaa wax socon kara dhalinyaro ayaa wax soo siin karta dhalinyaro isu timaado inay maartay waxbarashada kordhaan xiriir yeeshaan oo guddi sameystaan baa loo baahan yahay. kamid ahay jaaliyadda ama ururka dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed SPDM farxad bay tahay in Shiiqaal Development Network SDN ay nagu marti qaadaan anigoo waliba bulshadana kamid ah aad iyo aad bay sharaf ii tahay. waxaan u mahad celinayaa dhalinyaradii hablihii ka soo qayb galay ee soo abaabulay xafladan. abtiiris weeyaan abtiirkeena maale turxaan awooya la raaco abla guursadaan na dhalay shaqaaladkeeda adduun weyna lagama helo qabiilkanaga waa fariid waana iga maaha sheekhaal weyno calankeedii saxarkii iyo siigada ka qaado kitaabkeedi sudhato
hadba jeeni qaade sheekha halay toos toos sheekha halay toos deeq darajo university fi minnesota